السلام عليكم كسر دوال عشر كينا مانتا العشر كينا كمتيشو استوديو عشر كيس السديدات waxaan ku soo qaadan doonaa sidaan video u qurxin lahayn haddana codka kale ee videoga saaran aad iskaga jari lahayd iyo waliba si aad muuqaalo aad u sameyn lahayd structure-ka ku haboon iyo waliba sidoo kale hadduu ka yar yahay muuqaalka space-kiisu shaashada markaas ku muuqato aad sameynaysa hadduu ka yar yahay sida isku la ekaysiin lahayd ayaan maanta casharkeena ku baran doonaa hadduu eebba awood la ogolaado ku soo dhawaada casharkeena maanta shaashada aad u jeedaan waa Camtasia Studio maanta casharkeena waxaan ku soo qaadan doonaa sidaan hore kugu sheegnay sida muuqaal loo sameeyo sidoo kale loo qurxiyo iyo waliba sida codka originalka ah ee marka hore muuqaalka saaran sida looga reebo codka originalka ah ee marka horeba saaran sida looga reebo hadda waxaan samaysanay space-kiyo faaruqa ayaan samaysanay sida marka waan bilaabaynaa step by step waa inay ila socotaan marka ugu horeysa waxaan soo qaadanay muuqaal yar oo gaaban oo run sameynaya oo qof ordahaya ah muuqaalka marka intaan leeyahay waxaan u baahanahay inaan shaashada la ekaysiino geesahaasaan qabanaynaa waa kala jiidaynaa soo ma aragtid waan kala bixinaynaa marka muuqaalkan iyo shaashadu isma leeka oo qofki taagnaa loogu talagalay sidoo kale marka wuxuu noqonayaa inuu gees muuqaalka shaashada fuulo shaashada dhan laguma wada kala bixin karo Camtasia laakiin waxaan sameyn karnaa inaan meeshan kore inaan right click siino meeshan kore ficta yarta inaan furno markaan furno wuxuu ku leeyahay fit shaashada waa caadi shaashada caadiga fit 170 130 shaashada intay noqonayso 300 aad u farbanta laakiin waxaan leenahay project setting baan ku dhufanaynaa project setting ma ku dhufano waxaan leenahay ficta calaamada yar baan furaynaa muuqaalkeena inta shaashadiisu noo la ekaanaysa waxaan ka dhiganaynaa high definition-ka inaan ka dhigano 1080 inaan ka dhigano 750 labada waa awood oo u leenahay mid ka rabtid baa la isticmaalaa laakiin kana fudud inta badan laakiin kan kore iyo kan hoose mid darafna ka dhigan karnaa midkood noo door kana doorana hoose waan dooranay kadibna apply baan niri shaashada marka xoogaa yar bay wax moodaa in sideeda ka soo yar dhahay mujida shaashada way soo koobantay marka waa ku noqonaynaa kan weyn baan qaadanaynaa markasta kan weyn ayaa space weyn marka waxaan qaadanaynaa 1000 halka fictaasaan furaynaa markaan furno waxaan leenahay muuqaalkan qaybtay ka dhiganaynaa calaamad baashan yartaan kor u soconayna scroll bar-ka waa kan marka kan high definition-ka rabnaa high definition mugu jeedaa may raadi ilaa aan ka helno custom high definition 7 baa ku jira waa kan oo halkaan ku jira 1080 waa kana qaadanaynaa oo kana waa wide screen shaashada dhan balaaranaysa kaas aan ku dhufanay kadibna oo apply baan niri shaashada marka shaashadana geesaha fiirinayna ee kan maaha ina fiirinaysa kan asaga intuu leeyahay inta ma dhaafi karo waa inaad fahantaan rajeynaya hayo muuqaal kale telefoon lagu duubo soo qaadaasna si aan u ogaano muuqaalka telefoonka lagu duubana inuu isla ekaado muuqaalka telefoonka lagu duubay uu yahay wax yar oo kooban buu u muuqdaa inuu yahay marka waxaan doonaynaa inaan shaashadana la ekaysiino ninkaan ka fogay xaggaas geesaha telefoonka asoo waxba laga bedeli karo muuqaalkiisa ma u bedeli karo dad doonana iska jarno calaamada saas ahay markaan doorano hadda ma doorna saan marka ugu dhufano waa dooran yahay waxaan ku dhufanayna calaamadaas ama esta computerkeena keyboardkiisa ayaan riixaynaa markaan ku dhufanay maxaa dhacday qaybtaan ay go'day delete baan leeyahay ama right click baan leeyahay delete baan ka raadinay delete waata
saasaan u tiri karaa. labada muuqaal daa marka isku hoos dhigo waxay noqonayaan laba isgees taalla, laakiin dhinac waxaa jooga qofkii tartamayay, dhinacna waxay jooga mobile phone-kii. marka shaashadda marka meelaha uu ka furmahay, meelaha banaanaanahay, meesha marka waa inaan sawir ku aadinaa ama muuqaal leeg. marka muuqaal leeg kana noo noqonaya, kan noo soo qaad, halkaa noo dhig hoose, halkaa noo dhig hoose, kadibna scroll barka hoos u jiid. okay, ama waxaan sameynaynaa inaan kan kor u jiidno, kana kor u qaadno, kana marka hoos soo dhigaynaa. muuqaal yar weeye asaga laftigiisu, muuqaal yar weeye kana asaga laftigiisu naguma filna, muuqaalkan rabnay maaha. kay kan kor isagana iiga sii durki, asna kor iiga sii durki si aan kor u saarno, kin korota u gee, halkaan kan iyo kaasaan isku daba xiraynaa. okay, labadaasaan isdaba dhignay, meeshana hoose noogu celi si aan u helno muuqaal hoos noo yaala. kan ayaan qaadanay, muuqaalkan isaga wuu la egyahay shaashadda ayuu egyahay muuqaalkaasi. okay, marka muuqaalkaani isagoo shay ka muuqda wakaa ku aadan, marka waa kana waa ka bixin doonaa sida horaan usoo baranay. marka kan shaashadda noogu fid buu ku noqon doonaa kani, sida qaabka shaashaddu u samaysan yahay oo high definition waa iska la egyihiin. okay, marka maxaan sameynaynaa, asaga laftiisa qayb iga jar dura waa badan karaaye, qayb iga jar, qaybtaa xaggaan iska jaray oo bilowga hoosa, kan halkaan qabo saa usoo jiid si ilaa derbi uu ka tago. okay, saana u samaysana kan. meeshan waxaa kaaga muuqda videogan weeye, videogan ka muuqanaya, videogan ayaa halka ka muuqanaya. kadibna waxaan sameynaynaa inaan soo dhaweyna asaga laftigiisa weeye. muuqaalkan waa muuqaal caadi oo video salasusa film editor, balse waxaan rabnaa inaan iska sii yareyno. computerka instant taabtay, dhinacaanaan gujiyey, kadibna waa iska saaray. kan marka uu shishay buu noo yaalaa, laakiin waxaan ku baraatikaynana muuqaalada ka sokeeya ayaan doonaya inaan ku tuso. muuqaalada ka sokeeya ayaan ku tusaya qofkan tartamaya. qofka tartamaya hata backgroundkiisa aan bedelo. marka koowaad backgroundkiisa loo bedeli jiray waad garanaysaa, oo waxaad ku dhufanaysaa moodaana ku dhufanaysaa. marka moodaa ku dhufatay virtual effect waa leedahay, waxaa kusoo baxaya calaamadahan ay kusoo baxaya virtual effect. intaan dhan baa isku yiraahdaa. kanaad qaado, qofka soo jeeda ayaa qaadanaysaa, waad jiidaysaa, waxaad dhex geynaysaa muuqaalkii aad doonaysa in kalarka ka bedeshay. ninkii muxuu mar noqday shaashadka qofka ka sokeeyuu noqday. calaamada yar oo horta kalarka ayaan furayaa, calaamada yar oo dhinaca bidix ku taala, midigtaada ku taala. saa markaan u furo waxay noo noqotay, waxay soo baxay box yar, boxkaas barta madowgaan ka qaadanaya. way ka qaatay, waa ku noqonaya meeshii qalinka hore ayaan qaadanayaa. qalinkan barta cagaarka qofka ka shaqeeyay gidaarka cagaar ma ku dhufanaya. waxaa ujeedaa qofkii kaligiisa meel buu ku soo haray oo kalarkii waa laga reebo. okay, telefoonkaana kanina waa muuqaalkii kale weeyaan. waxaan doonaynaa inaan asna dul dhigno, muuqaalka kale inaan dul dhigno ayaan doonaynaa. haddaba saan u dul dhigno muuqaalkan laftiisa qaar iga jar si igu qurxoonaado. qaybta hore aan iska jara iga goo. okay, waxaan soo qaadanaynaa animationkaan soo qaadanaynaa. maalin dhexaan soo arkaynay, casharadana kusoo aragnay. kanoo kalean qaadanaynaa, custom kan ugu horeeya waa kusoo jiidaynaa, waa dhex keenaynaa. calaamadan yartaan bay noqotay, saana u sameynaynaa, xoogaa yaroo madaxaan u sameynaynaa. kadibna isagoo dhan baan jiidaynaa oo qofkii aan kor saaraynaa. markaan sameynay calaamada yartaa meesha ugu horeysa waan tegaynaa, waxaan geynaynaa falaartana ku aadinaynaa. kadibna waxaan leenahay scroll barka halka ka muuqda, waxaan leenahay yaree soomaana yareyn. waa kasoo tegaynaa. okay, calaamadii halkaana calaamad kale nooga soo baxday,
tan ma rabno xaggan marka tii aan samaysano tan ay noo noqonaysaa meesha ku dhamaataan imaanaynaa waa afkeeda waxaa leenahay scroll barka noo kala bixi ana muuqaalkan rabnaa soo kala bixin calaamada banaanka uga bax falaarta banaankeeda tag scroll barkan weyne maxaa aragtay shaashad sanka in naga soo gashay soo ma jeeda shaashada la qabsata okay deetana colorka marka inaan ka bedeshaan rabaa visual effect ide and remove background isoo jiid dhex dhig markaan dhex dhigo calaamada yartaa fur madow ku dhufo masana ku noqo qalinka soo qaado qalinka halkaa tag ku sii okay marka shaashadii waa laga wareejiyay meeshii okay ayaan baraawin blockchain marka hadallaa ka dhex yeeraya codadkaasoo ka dhex yeeraya waxa qablamayo dhan aan ka saarnaa rabnaa saa uga saarna haddaba codka inaad ka saartid baa rabtaa dhexdeeda ama midda codka ka saaraysid codka ka dhammayn rabtid ama aad gaabinaysid right kale ku dham marka right kalmada ku dhaho waxaad tidhaahdaa edit audio edit audio aan ku dhufday waxaa isoo baxday waxaa calaamad yar oo cagaara la ii saaray ama blue ama green marka hoos usoo yeeray calaamadaas codkaan ka saarnay macnaha codkii xabadihii iyo wixii yeerayay halkaasaan ka saarnay okay hoos u soco marka saan tan kalan oo aragno kan leftigiisa waxaan rabnaa inaan codka ka saarno oo isna waa cod kala sheekaha ka yeeraya right click dheh audio effect dheh audio edit audio dheh codkan gaabi qofka codkiisa ma rabnay ma ogtahay okay marka aan baraaweyno waayahay wax yar baa masana halkan naga maqan oo kan meeshan hore backgroundka lagama saarin weli in ayadana ka saaraan rabnaa meesha horena backgroundka ka saarno okay isku tab way noo noqotay aan baraaweyno marka qofki waa ka ordahaya qofka ordisa ma rabno laakiin waxaan rabnaa okay kan uu soo weynaanaya ilaa shaashadu soo qabsado laakiin computerka ku dhegdhegaya weli cod baa yeeraya codka yeeraya halkee ku jiraa codka yeeraya wuxuu ku jiraa kan ugu hooseeya muuqaalka ugu dambeeyay ugu hooseeya ku jiraa right click baan leenahay edit audio aan leenahay kadibna waa gaabinaynaa codkiisa hoos ba iska geenayna marka kaligay baa hadlaya wax iga daba hadlaya ma jiraan okay kan hoose ku dhufo ninkaa ordaya waxaa iisoo qaadataa animationka soo qaado custom soo qaado halkaan soo dhig saa igu kala bixi afka markaan joogo scroll barkan yare waaya okay aan baraaweyn marka su u wardayo hoos u yaraan asagu okay kana waa kusoo aadamay qofkiina shaba ka ordaya ma jeeda wuu sii yaraaday hoos u dhammaaday okay marka saasaan u sameynay muuqaalo aan isdul saarana ka dhigno haddaad doonaysa in animation samaysid dadna codka inaad waxaan soo qaadanay codka gaabino audioda gaabino labada muuqaal isdul saarno sidoo kalena aan sameyno adimka yeeray duhurka sidoo kalena aan labada cod isdul saarno intaasna casharkeena maanta kusoo gabagabeynayna waa lessonkii 8aad la soco lessonka 9aad alla idmo iyo weliba qaybo kale xiiso badan waa Cabdinaasir Axmed Jaamac haddii aad muuqaalkan ku xiiso gashay subscribe taas ka hilmaamin comment-da noogu reeb halkaa deetana waa si wadana casharada Ilaahay idmo marka qofkii doonaya inuu daatada helo casharka 8aad ayuu contest ka download garisan karaa hoosteeda oo linkiga ay ku jiraa aad iyo aad baad u mahadsantihiin